Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Videogan waxaan doonayaa inaan ku sharaxo qaabka abka aad ugu shubeysid kombiyuutarkaaga. Marka hore waxaad soo kicinaysaa programka la yiraahdo Google Chrome. Google Chrome markaad soo kicisid waxaad la soo degaysaa abka oo qaabkaana baa lagu soo dirayaa. Marka abka waad furfuraysaa hadduu WinRAR kuugu jiro ama wixii kale kuugu jira aad ku furfuraysaa. Right click baad taabanaysaa abka dushiisa, waxaad ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay extract to maaragtay abkaaga magaciisa. Marka tan ku dhufatid wuxuu kuu sameynayaa folderkan ayuu kuu sameynayaa. Marka folderkan laba jeer ku dhufanaysaa, laba jeer haddaad ku dhufatid saan ayuu kuu soo saarayaa saa ujeedid. Marka qaabkan kuu soo saaro abka halkan ku jira. Marka waxaad imaanaysaa Chrome-kaaga kusoo noqonaysaa, waxaad tegaysaa meeshaan ay ku qoran tahay saddexda falaarood ku qoran yihiin, ku dhufanaysaa setting-ka, hoos u soconaysaa, waxaad tegaysaa more tools, then waxaad tegaysaa extension haddii aad tagtid wuxuu keenayaa khaanadii abka la soo gelinayay. marka hore aad soo gasho waa qaabkan. Marka waxaad furaysaa meeshaan ay ku qoran tahay develop mode-ka, hadday xiran tahay baad furaysaa. markaad furtid qaabkan ayuu kugu soo saaraya. Marka abkii baad ku dhufanaysaa, saan ayaad usoo jiidaysaa, waxaad soo dhex dhigaysaa meeshaan. markaas aad usoo dhex dhigtid wuxuu ku weydiinayaa, wuxuu ku leeyahay abkan magaca leh maada iskale, waxaa leedahay add soo geli. markaad soo gelisid khaanada apps-ku kuu soo furaya. marka khaanada apps kuu soo furo simple abkaagi halkan ayuu kaaga soo baxayaa. abkaagi right click baad ku dhufanaysaa, kadib waxaad dhahaysaa create shortcut. wuxuu ku leeyahay desktop ma dhigaha create baa leedahay. kadib abkaagi qaabkan ayuu kuugu soo baxayaa saa ujeedid. abkaagi waa kan, qaabkan ayuu kuugu soo baxay. marka haddii aad rabtid abkii inaad isticmaasho double click baad siinaysaa. double click markaad siisid qaabkan ayuu kuugu soo baxayaa saa ujeedid. marka qaabkan kuugu soo baxo wuxuu keenayaa meeshii laga geliyay abka. kaliya userkii lagu soo diray, shirkaddu kuu soo dirtay unbaad gelinaysaa. tusaale ahaan userkaygu waa demo, passwordkayguna waa intaan oo kale. markaan geliyo waxaan dhahayaa login. markaas ayuu wuxuu dhex geenayaa programkaygii gudihiisii. marka hore wuxuu ku tusayaa tutorialkan kooban, wuxuu ku tusayaa qaabka loo isticmaalo programka iyo wixii la mid. next baad dhahaysaa. haddii aadan rabin end baad iska dhahaysaa saa ujeedid. marka intaan markaad samaysid waxa way programka gudaha ugu jirtaa. marka ugu horreeya programka soo gashay passwordka lagu soo diro waa default waa 1 ilaa 5. marka si aad isaga bedesho passwordka waxaad tegaysaa meeshaan ay ku qoran tahay magacaaga ku qoran yahay, ku dhufanaysaa. kadib waxaad ku dhufanaysaa profile. markaa ku dhufatid wuxuu keenayaa khaanadan. marka passwordkaaga waa halkan gelinaysaa. tusaale ahaan passwordkaaga hore waad gelinaysaa. markaad gelisid waxaad haddana gelinaysaa passwordka cusub ayaad gelinaysaa. mar labaad ayaad haddana ku celinaysaa passwordka cusub. kadib waxaad dhahaysaa update. sidaas ayaad ku update garaysa passwordkaaga. waana waajib markaad soo gashid inaad qaabkaas samaysid. haddii detailkaaga wax ka khaldan yihiin halkan ayaad ka saxsixi kartaa. marka videogan intaas ayuu inoo noqonayaa. hal mid baan ku darayaa oo ah marka aad ka baxaysid programka waxaa imaanaysaa magacaaga ku dhufanaysaa. kadib meeshaan ay ku qoran tahay sign out baad ku dhufanaysaa. sign out haddaad ku dhufatid wuxuu ku keenayaa bannaankii ayuu ku keenayaa. marka sidaas ayaa uga baxaysaa. waxaan filayaa inaad fahamteen. haddii ay jiraan waxyaaba aad fahmi weydeen insha allah way soo weydiin doontaan.